السلام عليكم waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo dalka Liibiya joogta waxaan ka talinayaa dalka Soomaaliyeed madaxdayda qaaliga ah baan aad iyo aad baan horta u salaamaya waxaan uga talinayaa dalka dhalinyarta hadda dalkayga ku sugan ee joogta in faa'iido wax loo qabto aniga dalka waa la igu dayacay waayo mustaqbalkayga meesha ma oolin meesha dalka aad iskaga dhibaato badan maanta Liibiya ku suganahay aad bay badan tahay faa'iido maanta kama hayo waxaan maanta yaraa faa'iidan ka hayo ma jirto laakiin soo laabasho dalkayga maxaad soo laabay imka daliilay maxaa faa'iido ka hayaan ka soo laabtaa $10,000 baan reerkayga ka maraya hadda dalka dadka ku sugan waxaan ka rajaynayaa madaxweynaha Farmaajo in dalkayga wax loogu qabto oo dadkayga wax u taraan oo dhalinyartayda anigu ka baxay dalkii dadkayga in wax loo taro oo faa'iido wax looga keeno oo dhalinyarta la tirkaliyo oo la dhaqaale geliyo oo waxbarashadooda laga dhiso oo caafimaadka laga dhiso oo dhaqaalaha laga dhiso oo dhalinyarta la dhiirigeliyo ayaan maanta rajaynayaa anigu maanta dalkii ka tagayba maanta saan ku soo noqonay aad soo baxaysa maxaad kula tan leedahay oo dhan dalka dhalinyarta soo baxaysa waxa leeyahay meesha tahriibta aad bay u badan tahay ana dhibaato ka soo maray dhimashaan ka gaajaan ka xumaan ka sumcad tilaan ka sumcad sharaf sumcad raan arkay ana maanta tahriibta warka haya dhibaatadeedana og meesha ugu xumeedan maanta taaganahay rajo la'aan maanta fadhiya dalka waxaan ku soo noqdaa ma jirto marka waxaan rajaynayaa dhalinyarteena ku soo hanweynay dalka ka soo baxaana walaalayaan macaan oo dalkeena haweysta dawladda ay gacan qabanaysa dadka ay gacan qabanaya insha Allah bismillaahi kariim khayr baan rajaynayaa السلام عليكم أنا جماعة عايز اسم بالله هذا ودك ليبيا كسجنا هي كارهن عاصمة طرابلس أنا ودك كيجي صومالي وان شعلها لكن هدف أيام مرقور وصباح هم يجي يروحوا يوروب أصحابتي غير كيرو يوروب وتشوفان لكن سنة سجون نصيب كي غني قال كلمة أنت هديجي هنا فرماتشو حنقولت لنا يا مدح وين دل دل كتشوكتو بروح لاقط على جزء يمكن دميرتي فرح هيك بحدي يمكن بنوليد واحد دلير ساوو بابا يسا maan kasto ugu dhimanaysa wadanyar Soomaaliyeed madaxweynaha dhalinyarta markay dalkaaga joogto wax u qabo laakiin markay ka soo baxaan madaxweyne waxba ka soo dabahaldin safiirku uu maadsan yahay markasta Afrikaanka safiir baa u yimaada in anaga la soo tabo magaca Soomaaliyeed nagu soo tabo Farmaajo baan leenahay madaxweynaha ayaga wad maadsan tahay taas salaam waan ka siinina laakiin markuu dalku joogo aniga simsim waxaan ka baxay jaamacad markaan waxaan ka shaqeeyay waayay baan iska soo baxay laakiin imika madaxweynaha mid ayaan anu ku darsanaya qarash baan naga soo baxay intaas oo dhammaan soo noqdeen rabadaantii baan soo baxay ilaa xilligan Liibiyan jooga xaafadeedii $10,000 bay iga bixisay marka maanta hadii madaxweynuhu nala garab galay qarashkii naga baxay iyo waxyaabihii waxa la oranaya dhalinyarta birkood way soo noqon laakiin qofka soo xulay maanta anigu intaas lacag maraya si ama macquul u tahay inaan ku noqdo Soomaaliya marka waxaan oranayaa madaxweyne anagu tagnay anagu nasiibkaygan qaadanay inta soo socota dhalinyarta kale laakiin soo waqti xaadir ka rabtay in wadankooda ka soo baxdo masana tahriib u soo baxdo anaga ayaa faa'iido ka gaari lahaa tahriib ma habeen kasta badda waan galnaa wala naga soo celiyaa habeen kasta sidaan jeel ku jirnaba Liibiyaanku marba guri nagu xidhayaan ku oranayaan aadan ikhtiyaarkaaga lahayn maanta idinka ayaa dalkiina hooyo jooga anagu maanta waan tagnay haddaan meesha sii ognayna ma na soo noqonin laakiin dalkiina hooyo wadankiina iska jooga madaxweyne Farmaajo waxaan oranayaa waa maasan doo kaliya laakiin ma soo socdaan Soomaaliya